السلام عليكم سو dhawaada meel kasta oo naga daawanaysaa waqtiyadii iskuulka lagu dhaqanaayay ayaan marka insha Allah waxaan rabaa inaan idin tuso waxyaabo fudud oo maaragtay waalidkana u fudud ilmahana u fiican ilmaha maaragtay wadamada jooga anyway maadaama ay jecel yihiin waxyaabaha sandwich-ka fudud baasta iyo bariiska aysan aad u xiiseynin adigana shaqada kaaga yaraanayso ayagana waxay jecel yihiin waa marka 3 bari 4 weekii mar saan oo kale inta wax badan samaysato fridge-ka u gali diyaar ha u noqdaan si markay u leeyimaadaan shaqada xataa ay u yaraato alaab dhaqidii maaragtay cunto kariskii waxyaabahaas oo dhan ay u yaraadaan waxaan markasta diyaar ha ku noqdaan waxyaabahan marka inay diyaar ku noqdaan isku day subscribe garee haddaad subscribe gareenin thumbs up samee and share of course walaalo kaleeto ay u arkaan way mahadsantihiin sandwich-kan si fudud loo sameeyey ka faa'iidaysta assalaamu calaykum okay asxaabta sharafta leh waxaan isku diyaarinaynaa iskuul dadka qaar iskuulka waa ku noqdeen dadka qaarna insha Allah mar dhow week danbaa loo furayaa marka waxaan idin tusayaa chicken salad tuna salad iyo egg salad si fudud loo sameeyay hal waxaana lagu wada darayaa insha Allah waxaan hadda aan isku daray waxa waaye qajaarka yar yar oo pickle-ka oo dhalooyinka ku jiro toon liin dhanaan iyo Italian parsley-gan oo asagana maaragtay optional ah hadaa rabto waa ku dari kartaa hadaa doonto waa ka dayn kartaa maadaama waxyaabo badan uu fiican yahay dhinaca caafimaadka dhadhankiisana liin camal ay tahay waa ku darsadaa aniga waxaan halkan u jeedaan caper salad halkaas ku qoran yahay ansalaatooyinka iyo waxyaabo badan lagu darsadaa aad u macaan yahay liin dhanaan iyo wuxuu u dhaxeeyaa cusbo insha Allah marka ka war doona inta kale waxa laga yaabaa inaa wada taqaanaan oo guriga idin yaalo waxaas hadda aan ku daraayo waxa waaye cream cheese Soomaalida badankeeda waa isticmaalaan Philadelphia cream cheese iyo basal caleentaas waa isku dhamaatay intaas qof kasta waa isku dari karaa markaas kadibna waxaan sameysanaynaa wixii maaragtay sandwich-ka aan ka sameysan lahayn blender u isticmaalaysaa mishaariha ka dhigan laakiin adiga si fiican u shiid markaas kadib hadda waxaan bilaabanaynaa ukunti egg salad-kii aan sameysanaynaa ukunta sida looga sameeyo salad oo rootiga dhex gashanaysaa hadhow waxaa ku cuni kartaa maaragtay pita bread ka mid ay dhahaan ku dardaaran kartaa rootiga dhex gashan kartaa hadaa shaqo u socoto haddii aad maaragtay iskool ilmaha kuu aadayaan oo qada u siiso aad u fududahay egg salad-kan waa ukun laga sameeyay salad ay dhahaan egg salad ay dhahaan meeshaan laakiin waa ukun rootiga aad dhex gashan karto mashiinkan aan ku jijibinayaa haddaad doonto qaada iyo fargeeto iyo mindi waa ku jijibin kartaa yacni just hal mar aan ku dhufanayaa mashiinka waa dhamaatay wakaasaa asagoo aan baaba'in oo kuuskuus camal hu iiga soo dhacay marka cuntada waa cunto fuul ah ilmihiina maaragtay in wax u tarayso waxtar leh haddaa iskoolka ilmo aad u siiso cunto waxyaabahan waxa ugu fiican waay aa u siin karto ilmihii baastada iyo bariiska waa ka hor imaatay basal caleen yaraan korka uga daadinaa waa isku qasaa waa isku dhamaatay maasha Allah 5 minutes ay kugu qaadanaysaa waa inta ukuntaas karaysa kaliya iyo daqiiqadaas aad mashiinkan aad shiidayso rooti fiican oo maaragtay rootiyaal fiican waxaa badanaa laga soo gataa Costco maasha Allah Costco anaga noo dhow Costco-kan kasoo gataa rootiyaasheeda inta badan waxaan ku leeyahay maasha Allah adigina waxaa ka raysatay alaab dhaqidii maaragtay nadiifiskii ilmihiina baasti bariis maaragtay xoogaa maadaama ay ka hor timaaday wax oo bedelahay kuu noqonaysaa waa isku dhamaatay waxaan ku darayaa ansalaatadaas diyaarka ii ah ayadana Costco-kan kasoo gataa wakaasaa magaceedana halkaas ku qoran yahay ama nooca ansalaato ah haysato ku darso haddaad ansalaato rabin xataa waa ka dayn kartaa laakiin waa maaragtay ama quraac fuule ama qada fuule casho fuule saa doonto isticmaal koobkaaga caanaha ah baasta iyo bariis waa ka maarantaa soo maaha maasha Allah wakaasaa qatar 5 minutes ayna kugu qaadata haddana waxaan sameynaynaa tuunada gasac ku jirto saliidii aan wax yar ka daadiyey wixii haddaay aan shiidanaynay ood maaragtay aa ujeedeen oo baaquligaas iigu jiro aan kulligood u isticmaalayaa marka waa isku qasaysaa waa base mar horeetan wixii shiidanay soo maaha waxaan ku darayaa kaliya cream cheese xoogaa waxaan rabaa in maaragtay ay more cream noqoto maadaama ilmo aan siinaayo waana macaanaynayaa cream cheese-ka macaanna waa ka dhigaya cream cheese-kaas aan wax yar ku xoqay aan wax yar ku daray waa dhamaatay maasha Allah waxaan markaan aan ku cunaynaa muufadan waxaa laga soo gataa Costco ayadana flaxseed laga sameeyay aad u fiican tahay muufadan haddaa toasterka wax yar geliso waxaan ku leeyahay the best muufa aad soo gadatay ever ay noqonaysaa flaxseed ku jiro ilmahayga bahashaas u jecel yihiin waa yaabaysaa aad u macaan tahay marka insha Allah ka war doono muufadan xataa alaabtan waxaa u cuni kartaan snack ahaan galabtii maaragtay marka la isku imaado ilmaha dhexda u dhigi kartaa maasha Allah waxaanay ku dardaaranayaan waa cunto aad u fiican oo fuul ah ayadana haddana waxaan sameysanaynaa chicken salad-kina sidii oo kaleeto chickenka biyaan huf ku siiyey iyo cusbo kaliya biyo iyo cusbo kaliya aan ku kariyay waa chicken breast aan jarjaray chicken suqaarka ka samaysato
chicken suqaarka ii diyaar oo biyo iyo cusbo kaliya ku kariyo waaye waxaan u jeedaan mashiinkan wax yar ku jarjarayaa aan ku kadkadfayaa markaas kadibna sidii aan kuwii kala sameeyo kaleeto waxaan ku darayaa wixii ay shiidnaa oo mar hore aan diyaarsaday iyo cream cheese alaabtaan waxaan ku leeyahay maasha allah haddaa shaqaale tahay wiilasha iskaabulada ah ka faa'iidaystaan dadka maaragtay ay u joogaan dhalinyaro teenager alaabtaan haddaa baaquligaasoo kale intaa ka buuxiso firinjeerka aa u geliso hooyo maxaa la cunayaa lama jirto firinjeerka wax kasta ugu jiraan haddii aad shaqaysato perfect waaye maaragtay ilmahaaga intaa maqan tahay waa isdabari karaan alaabtaan u diyaari firinjeerka u geli waa isku dhamaatay maasha allah maalinkaas marka waxaa waqti u helaysaa in maaragtay ilmihii aa waraysato aa dhagaysato reerkii oo dhan maaragtay ay relax iska noqdaan maxaa yeelay marka cunto la kariyo waa ogtihiin nadiifisaa ku xigo soo maaha marmar marka cunto kariska tirada badan leh loo gooyo mideeda kaleeto haddaa intaa wax kariso ilmihii ay soconin qashinkaa la geynaya waa la daadinayaa waxaasna waa ogtihiin dambigeeda badan insha allah taas ha laga waantoobo cuntada in la daadiyo wakaas chicken saladkii markaa meeshaas geliso ansalaatadina spring mixki aa ku darto waxaan ku leeyahay dhag koob caana haddaa u hesho maalinkaas maaragtay reerkoo dhan waa habi marka waxyaabahan aadka u fudud maadaama maaragtay iskoolka lagu noqonayo ka faa'iidaysta cajaladana sheergareeya biidnillah wixii talay tusaalahana hoos ku reeba aad umahadsantihiin isku daya cajalada inaad sheergaraysaan haddaad subscribe garee si aa u aragto waxyaabaha cusub snapchatkayga wakaas wasalaamu calaykum dadkii aad taqaanay 10 baa dhaka diiran 10 baa food dhalaa leh adna tuurkan istaagsan iyo timahan buulka la moodo tabtood maad wax ka tiraahdid dhowrre fooqal dhowrre tubta ceel ku aroortiyo tuulada iska joog baa cimrigaadii ku tirmee ma tilmaan baa ku anfacaysa ma taqaanaa safa herbal oil safa waa saliid doora waa dabiici sifaysan oo ku sifowday daryeele safa herbal oil mar un ku eg timahaaga taranka timahaaga waxaa dheer turuqaada oo markaad tis ku siiso Tylenol damci maysid tartiib marsa dawadan timahaaga ku eg dawada herbal safa herbal oil oo aad ku anfacayso dawadan wanaagsan waxaad ku heli kartaa oo aad ka dalban kartaa internetka waxaad ku bixin kartaa lacagta PayPal waxaad ku bixin kartaa xawilaad haddii aad ka agdhowdahayna waxaad ka doonan kartaa goobta aad ka helayso ha moogaanin safa oil herbal oil